بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علماء hadday joogto waxay ahayd in iyagu tilmaamaan على كل إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحنا tilmaamaya ayada sheekhu akhrinayay يا ربي ولي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون waxaa laydinku waajib yeelay soon sidii dadkii idinku horeeyayba loogu waajib yeelay لعلكم تتقون أي كي تتقوا سا إلهي سبحانه وتعالى وعبستنا مع عبسد الربي أو قادا رمضان فضائش يدو إن بدن با مغشمان رجينيا وانا بالكوءة مسفات روحية وبالوقفك مسلم كي أصحي حدين الدنبغ اسكميرو waxaa inoogu dhib badan ee dunida inaga haysta waa dunuubteenna aakhiriya adduunbana waxaa laynagu abaalmarinayaa inta badan waa dunuubteenna wixii aan rabbi inaga dhaafa mooyaane haddaynu heeriyada iska rogno waad xalay dhalaydee soomaalidu sheegaysay ka noqotay dunuubta waa waxa ugu weynaa alla loogu dhowaado hada culamaa baa waxaa la weydiiyey تسبيح ده هي استغفارك كيف أنه الرئيسين نبيدا أما كيف فضل بدن والرساو حولي ضدك الذنوب تكون بدن طحينة استغفارك أو الرامبولي ضدك الذنوب تكون يرتحينة تسبيحاتك أو الرام وهي واحد كما أديكو أسكك لدي اللي اسمع عطريبو تلمامية إنها تسمعي له أمرك هروسك جيسكر ركتابا الرون نبينا عليه الصلاة والسلام وحينات المامية رمضان إن إلهي كدافه رمضان إلى رمضان وحيود حيين رمضان تلغو داف وحكالو نبي المامية عليه الصلاة والسلام هبين كستور رمضان سوق ليسو إن داتك برد لغو حرية نارتو إلهي سبحانه وتعالى دمي قوضا داف وحكالو نبي المامية قفك الصومة إن إلهي دنبيgiisa dhaafayo waxa kaloo nabigu tilmaamay qofka iimaan waxtisaabana tukada habeenadaasi in dambigiisa la dhaafayo waxa kaloo la soo tilmaamay qofka habeenka laylatul qadriga si gaar ah iimaan waxtisaaban u kacay in dambigiisa la dhaafayo idan ramadaan oo dhami ama soonkeeda ha noqoto ama qiyaamul leelkeeda ha noqdo iyo salaadaha habeenkii la tukanayo ama habeenka laylatul qadriga ku jira ha noqdo dhammaanteed inay tahay wax qofka muslimka ilaahay subxaanahu wa tacaala dambiga uu kaga dhaafo dunuubtaynu galla waa tiro badan tahay cibaadaadkaynu la nimaadnaana kuma wada filla oo nabigu wuxuu tilmaamayaa salaad ilaa salaad baa dambiga lagu dhaafaa haddana wuxuu nabigu tilmaamay jimce ilaa jimce baa dambiga lagu dhaafaa haddana wuxuu nabigu tilmaamay bil ilaa bil baa dambiga lagu dhaafaa waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiiso oo salaad ilaa salaad haddii dambiga la dhaafay jimcuhu muxuu maydhayaa ilaa intaasoo salaadood baad soo tukatay ama jimco walba haddii dambiga la dhaafayo muxuu maydhayaa ramadaanta marka la gaadho cibaadaadku aynu samaynaa ma aha sidii la rabay nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam mid baa salaad tukada oo salaadiisa aan helaynin ilaa cushuruha ama thumunuha ama tusucuha iyo wax la mid ah idan waxoogaaga jajabka marka la isugu kaa beeriyo kolba in baa lagaa dhaafayaa hadday wada dhaafi kari weydo ta kale jajabkeeda lagugu sii darayaa in kalaa lagaa dhaafi hadday ilaa jimcaha gaadhi weydo waa la isugu kaa beerin idan waxaynu samaynoo dhammi perfect ma wadaha halkii qimada ma gaadhsiisna laakiin waa waxyaabo qofka muslimka hadduu ku dadaalo dhammaantood ilaahay dembigooda ku dhaafayo dee maantana waaba ogtihiinoo qoladan caafimaadka ka warrantay iyo waxa kane dee asoomi almutaqatic sooma maqashaan in badan intermittent fastingka sheegaan soonta googo-an iyo caafimaadka si wax uga taro bale ilaa xad bay hadda tilmaamayaan waxaan filayaa nobel pricekii 2016 kii la qaatay oshua odaygii jabaniiska ahaa wuxuu ku qaatay soon bay ahayd oo aha qofka bini aadamka iyo difaaciisa say u soo noolayso iyo jidhkiisa say u cusboonaysiiso iyo wax badan
إذا وحنا الدنيا آخرة بود كفايديسة الدنيا عافمات بات كهليسة توقو بدن لسالة الماميو آخرنا الدنبي قال غضافة وأنا كان بيقول كنت المامي حديث القدسي إنه إلهي لي هي أعماشا كلو دم بني آدم كايس كلا صون كمو يعني صون كسعنا على با إلهي يدي وأنا أجزى به محل لو يدي بين علماء يدي صون كإلهي باله كوا كلا با إلهي باله صلاة با إلهي درتي واحد هذا وحي كبحسنت قاعدة دي أها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 هذه نصوص تشيكتي أي يدو كبحسنت بين هذا وهذه وحيابها كانت طبعا بالقوة بالمرينية إلى تضوى بغلو شير لقاعدة iyadu waxay dhahaan qaacidada way ka baxsantay ajarkeeda ilaahay uma garanaya subxaanahu wa tacaala idan waxaynu leenahay waa waqti aynu u baahanay inaynu diyaar garowno ninka taajirka ahi wuxuu diyaar garoobaa mawsamka wax la gato saxaka maaha ninka taajirka ahi de waqtiyada uu isleeyahay wax badan baa lagaa gadanayaa buu alaab badan soo jamalaystay oo ku talagalaa qofka muslimka ahi waqtiyada dambiga xooga loo dhaafo inuu diyaar garoobaaba ku habboon acmaasha kaloo dhan uu iska fudaydiyo si uu camalkaasi u dhammaystiran karo marka bisha ramadaan inaynu ku talagalno oo intaanay soo gelin inaynu u diyaar garowno u diyaar garowgeennuna inaanu noqon hurdo badan iyo fasax badan inuu noqdo juhdi badan iyo camal badan oo diineed inaynu la nimaadno dadka badh baa ramadaanta waxay ugu diyaar garoobaan bariiska reerku cuni jiray bariiska tiro badan hilibkii la cuni jiray hilibka tiro badan kaama diyaar garowga ka warramaya ramadaan ba waxa loo soomayay in la gaajoodo in cunada la sii badsado looma xoolo guranaynin waxaan rabnaa inaynu diyaar garowno cibaado badan inaad samayso bisha inaad cibaadaysato oo isku daydo inaad ka bixi karto bisha iyadoo ilaahay dambigaaga dhaafay وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين